maanta oo ay taariikhdu tahay 10 September 2020 waxay noo qabsoomay shirkani caadiga ah golaha wasiirada ee khamiislaha oo daadihinayay sihayaha ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka mudane Mahdi Qadar waxaana looga hadlay dhowr ajendo oo ugu horeyso ansixinta siyaasado iyo hindisa sharciyeedyaalo waxa maanta lagu ansixiyay golaha wasiirada siyaasadda isbeddelka cimilada waxa kale oo la ansixiyay siyaasadda hindisa sharciyeedka hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga waxa kale oo maanta la ansixiyay axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta ee aqoonsiga dadweynaha oo wasaaradda arrimaha gudaha keentay heshiiska Soomaaliya iyo Qatar ee dhinaca canshuuraha ah iyo heshiiska Soomaaliya iyo Turkey ee xagga waxbarashada kuwaas waxay ahaayeen hindisa sharciyada iyo siyaasadaha maanta ay golaha wasiirada si aqlabiyad leh oo ku ansixiyay kadib waxaan dhageysanay warbixin dheer oo wasiirka waxbarashada oo noo soo jeediyay mudane Goodax oo looga hadlayay siyaabaha loo dhiirigelin karo loona tayeyn karo waxbarashada Soomaaliya oo ay ognahay 10 sano ugu dambeysay ay soo qaadatay marxalado kala duwan maanta meel fiican marayso laakiin wali u baahan in la dardargeliyo waxaan ognahay in manhajka fasalada koowaad ilaa 12aad ay Soomaali ku qoran yihiin Soomaaliya ah tayeynta macallimiinta ardayda kormeeridda iyo korjoogteynta wasaaradda waxbarashada iyo goobaha waxbarasho in la tayeeyo marka wasiirku wuxuu noogu waramay si dheer meesha ay maanta u marayso iyo daadihinta ay wasaaradda iyo dadaalka ay wasaaradda ku wado si xoojinta waxbarashada wadanka kadib waxaan dhageysanay warbixin kooban ay wasaaradda gaadiid dekedaha ay noo soo jeedisay wasiir Maryam oo ku saabsan heshiiska Soomaaliya dekeda Soomaaliya iyo Albayrak ay galeen oo muddo 3 sano iyo bar intay dawladdan jirtay wada hadaladeeda ay socdeen oo haddana meel fiican soo gaaray ay ugu weyn yihiin saamin qaybsiga faa'iidada ka soo baxda dekeda ay dawladda ay kala qaadanayso qodobo 7 ah ayay ahaayeen oo ay heshiiska wasaaradda ay kula heshiinaysay albarakaat albayrak waxaana muddo dhow khamiis soo socota duu ilaahay la keeni doonaa faahfaahinta heshiiskaasi oo dhameystiran si ay golaha wasiirada go'aan ugu gaaraan kadib waxaan laga hadlay waxaan rabnay inaan u tacsiyeyno wadanka walaalkanaga ee Suudaan oo ay dhibaatada soo gaartay fatahaadda maalmahan ku socotay waxaan leenahay Soomaaliya way idin garab taagan tahay golaha wasiiradana waxay baaq u dirayaan dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo Soomaali weyntaba in si gurmad ah loogu fidiyo wadanka saaxiibkana annaga na soo taageer markaan u baahneen in gacan laga siiyo waqtigan ay aad u dhibeysan yihiin waxa kale oo laga hadlay muwaadiniinta Suudaaniiska ah ee wadankan jooga iyo sidii loo taageeri lahaa naftooda oo ay jirto ku dhawaad taqaatiir iyo joogan macallimiin wadankan jooga si solidarity-geena aan ugu muujino golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen in laga tirtiro wixii deeman lagu leeyahay oo xagga deganaanshaha ah iyo lacagta ay bixiyaan khidmada ah oo kaarka ay ku qaataan oo shaqaaleynta ah kadibna wasaaradda arrimaha dibadda ay u dabargeli doonto si ay loogu saxiixdo Soomaaliya iyo Suudaan u kala saxiixdaan MOU ama is-afgarad maadaama annagana ay ku dhawaad 7,000 oo Soomaali ay naga joogto Suudaan ayagana tixgelintaas inaan siino si ay ayagana tixgelintaas noo siiyaan dhalinyarada meesha wax ka barata iyo qoysaska Soomaaliyeed meesha deganba marka taasna waxa golaha wasiirada isku raaceen inay tahay mid ugu fiican oo la sameyn karo in wadanka Suudaan tacsiin loo diro lana taageero shaqaalahooda wadankan jooga si ay loogu dhiirigeliyo inay wadankan walaalahooda ah ay u soo shaqo tagaan oo nolol shaqeeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.